السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين مقال كان وحنا ربعنا إن كل وذاقه ميت كم إذا الصومالي دي كوهذا سنيت كيس كيف فيدنا ورفيوجر أو لفيلي محكمة دين تيسو إن مالين تبريه هي بلابته أو دم بيجيس قرتي أيان إذا لو وذاقيا وقفكي كنتون إيه طلبات أو دتكي كوهذا سنا كيس كفيدنا ورفيوجر أو دم بيجيس قرته لنا بريق الدحى ما أنت دقائق وين يا كجري حماس labaatankii maxbuus ee Israa'iiliyiinta ee noolaa waa ay soo daayeen. Israa'iiliyiintuna waxay sii daayeen in ka badan 2,000 oo Falastiiniyiin ah. Trump waxa uu ka hor gudbiyay baarlamaanka dalka Israa'iil, Netanyahuna wuu la kulmay. Haddana waxa uu ku sugan yahay Sharm el-Sheikh isaga iyo madax fara badan oo heshiiska qaybihii dambe lagu kala saxiixanayo. arrimahaasi oo ayaan idin la wadaagayaa. Kiiskii Feeding Our Future waan ognahay in 76 qof dacwad lagu soo ogay oo Soomaali u badan ayaa intooda badan dadku waxay qiranayeen dambiyadooda. Hadda waxa ugu dambeeyay Cabdiwahaab Axmed Maxamuud oo ah ninkii toddobaadkii hore aan idin sheegay oo isniintii hore la xiray kadib markii uu la hadlay qof dawladdu ay wadatay oo la filayay in marka isaga la maxkamadeynayo uu ku marqaati furo inuu 2 jeer la kulmay oo uu yiri khiyaanoole ayaa tahay gabar ay ahayd isla markaana uu habaaray hanjabaadna uu jeediyay marka waxa uu ku xadgudbay shuruudihii lagu sii daayo qofka marka la sii daayo waxa jira shuruudo lagu sii daayo oo la leeyahay dadka kula eedeysan ababa marqaatiyaal noqon kara lama hadli kartid isla markaana lama xiriiri kartid marka arintaas ayuu ku xadgudbay waa tii isniintii la xiray marka jimcihii ayuu hadda dambigiisa qirtay waxaana iyadoo waliba maalmo yar ay ka harsanaayeen oo la filayay maalinta bari ah oo talaada oo 14 bisha ah in xulista xeerbeegtida maxkamadeyntiisa ay bilaabato 20 bishana ay dacwadiisa furanto ayaa jimcihii waxa uu qirtay dambigiisa marka waxa uu ku eedeysnaa in Cabdiwahaab Axmed Maxamuud waxa uu ku eedeysnaa uu qirtay dambiye ay ka mid yihiin lacago siyaabo qaldan la isugu diray wire fraud waxaana sidoo kale la filayaa in shan dacwadood oo kale meesha laga saaro marka la xukumayo marka xilliga la xukumayo wali lama sheegin laakiin labadaasi dambi ayuu qirtay Maxamuud hadda dambigiisa uu qirtay waxa uu ku muteysan karaa xabsi u dhaxeeya 11 sano ilaa iyo 14 sano iyadoo arintaasina garsooraha maxkamadda Nancy Brassel ay ku xiran tahay inta sano oo ay ku xukumi doonto dacwadoogayaashu waxay sheegeen in Cabdiwahaab Axmed Maxamuud oo 35 jir ah oo isagu mas'uul ka ahaa isdabamarinta dokumentiyadii lacagta ay uga qaadanayeen hay'adda la yiraahdo SNS Catering oo Lake Street ku tiilay ganacsigeeda waxaana lagu eedeynayaa 17 milyan iyo bar isaga iyo kooxda kula jirtay oo lacagtii canshuur bixiyaasha xilliga coronavirus-ka loogu talagalay in caruurta lagu quudiyo inay lacagtaasi ay gabi ahaanba ay qaateen sidaan hore idin sheegay isniintii ayaa garsoore Brassel waxa ay ku amartay Maxamuud in la xiro kadib markii qof kamid ah eedeysanayaashii oo isagana marqaati fur la filayay maxkamadiisa inuu ku marqaati furo ay baarayaashu sheegeen inuu isku dayay in uu u cagajugleeyo sidaas darteed waxa la sheegay in arintaasi xadgudub ku ahayd shuruudihii lagu sii daayay ee federaalka ahaa waxaana laga laabtay shuruudahaasi qayb ahaan lagu sii daayo xorriyadiisa banaanka ku joogay waa tii xabsiga la dhigay marka gabadha uu la hadlay oo la leeyahay dhamaadkii sanadkii 2024 iyo horaantii sanadka 2025 ayuu gabadhaasi 2 jeer marna Caramel marna Mall of America uu kula kulmay waxa la yiraahdaa Qamar Xasan iyaduna waxay ahayd milkiilaha SNS Catering iyaduna dambigeeda sanadka 2023 ayay qaratay dawladda ayaana marqaati fur ahaan markii haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future Amy Back iyo waliba Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayada Safari kamid ah dadkii marqaati furka ku sameeyay Qamar ayay kamid ahayd bishii February waxaana sidoo kalena hadda la filayay maxkamadan Maxamuud iyo kooxdiisa la filayay in la maxkamadeeyo in Cabdiwahaab Niraade in ay marqaati fur ay ka sameeyso marka Cabdiwahaab Axmed Maxamuud waxa uu kamid ahaa dadkii 76 qof ee dacwadda lagu soo ogay bishii September sanadkii 2022 haddana dadka dambigooda qirtay Maxamuud waxa uu noqonayaa qofkii 57 ee kiiskan Feeding Our Future oo isagu dambigiisa qirta waxaana jirtay in 7 qof dambi lagu helay 7 qof 7daasi 6 kamid ah waxay ahaayeen Soomaali halka haweeneyda kalena haweeneyda madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future ahayd marka 7daasi qof ee dambiga lagu helay 4 kamid ah waa la xukumay 3 ayaa xukun sugayaal 2 qof oo Soomaaliya iyo haweeneydaasi Amy Back hadii intaasi aan ka gudbo bariga dhexe saaka arin cusub waa cusub ayaa u bariyay
waxaan ogeyn in Trump uu soo jeediyey qorshe 20 qodob ka kooban oo lagu soo afjarayo dagaalka ka taagnaa bariga dhexe. Hadda waxa uu ku sugan yahay Sharm el-Sheikh oo shirka nabadeynta ee bariga dhexe la filayo in halkaasi qodobada harsan lagu kala saxiixdo. Heshiiska markii hore waxa waa xabad joojin, Israa'iil inay ciidamadeeda kala baxdo Gaza oo meelo loogu talagalay ay geyso, kadibna Xamaas ay soo dayso maxaabiista inta nool ay haysato iyo weliba inta dhimatay, Israa'iilna ay soo dayso in badan oo Falastiiniyiin ay haysto. Marka saaka arrintaasi ayaa dhaqan gashay. Xamaas markii ugu horreysay 7 xubnood ayay soo daayeen oo maxaabiista Israa'iiliyiinta ee noolaa ahaa Laanqeyrta Cas ayay ku wareejiyeen, kadibna ciidamada Israa'iil ayaa loo dhiibay. Sidaasi ayayna qoysaskooda ula midoobeen. Waad arkaysaan sawiradan kala duwan, waa markii qoysaskooda ay la midoobayeen. Sidoo kale waxa ay gadaal ay ka soo daayeen markii dambe in 13 kale oo 20kii maxbuus ee noolaa ee Israa'iiliyiinta ah Xamaas gabi ahaanba waa ay soo daysay. Dhinaca Israa'iil iyaduna waxa ay sii daysay ku dhawaad 2,000 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo gacanta ay ku haysay, iyagana waa kuwan iyagoo basa saaran oo aad u faraxsan. Trump waxaan ognahay inuu Israa'iil tagay, isla markaana waxa uu khudbad ku dhawaad 1 saac qaadatay oo ka horjeediyay baarlamaanka kaniisadka ee dalka Israa'iil. Waxaana uu yiri maalmo dheera oo xanuun badnaa ayaa soo gabagaboobay. 738 maalmood ayaa Xamaas ay gacanta ku haysay maxaabiistan Israa'iiliyiinta. Waxaana jira sidoo kale iyaguna ku dhawaad 20 kale amaba ka badan oo loo malaynayo inay dhinteen. Marka Xamaas waxay yiraahdeen qaarkood meel maba ku oginba, arrintaasi si wada jir ah ayaa loo baadigoobi doonaa. Halka kuwaasi dhintay qaar burburka guryo burburay ayay ka hooseeyaan, kuwa kalena tanalo amaba godadkii dhulka hoostiisa oo Xamaas oo lagu dumiyey ayaa laga yaabaa inay ku jiraan. Marka Xamaas 20kii noolaa gabi ahaanba waa ay soo daysay, Israa'iilna ku dhawaad 2,000 oo Falastiiniyiin ayay soo daysay. Marka Trump waxa uu yiri maalmahaasi waa ay soo gabagaboobeen. Aad ayaa dabaaldeg uu uga socday dhinaca Falastiiniyiinta ee Gaza oo iyagu dadkii guryahoodii u burbursan ay ku faraxsanaayeen inay ku soo laabtaan. Israa'iiliyiintana waxay u dabaaldegayeen in ugu dambeyn maxaabiistoodii laga haystay Xamaas ay u soo daysay. Trump waxa uu u safray dhinaca Sharm el-Sheikh oo madaxaadu fara badan ay ku sugan yihiin. Waa kan isagoo ay la sawiran madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Keir Starmer, ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni. Waxa uu la kulmay sidoo kale madaxweynaha wadanka Masar Abdel Fattah al-Sisi. Waxaana la filayaa halkaasi in qodobadii ugu dambeysay ee heshiiskaasi lagu kala saxiixdo. Hada wajigii koobaad waa uu dhaqan galay. Marka Gaza mustaqbalkeeda muxuu noqonayaa? Xamaas ay doonaysaa inay ku wareejiso iyadoo gacan ajnabi ah ay ka soo horjeedaa hubka dhigista Xamaas. Arrimahaasi oo idil ayaa waxay yihiin qodobada in Gaza yaa dib u dhisaya yaa maamuli doona. Waxyaabahaasi oo idil waxay yihiin waxyaabaha la doonaya hadda heshiiska Sharm el-Sheikh in lagu soo gabagabeeyo. Waan arki doonaa waxyaabaha ka soo baxa, laakiin hadda wajigii koobaad waxay u muuqataa inuu si toos ah u dhaqan galay. Israa'iilna maxaabiisteedii intii nooleed ee heshay, Falastiiniyiintana ay heleen ku dhawaad 2,000 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah. Isla markaana sidoo kalena qaybaha kale ee ka harsan iyo waxyaabaha ka soo kordhana wayna arki doonaa haddii Alla idmo. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.